daawadayaasheena sharafta leh oo ku soo dhawaad halkani waa Xusni News qodobada wararka ee aan idin haynana waxay cali masaar ka madaxweynaha dawladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka qabsoomay caasimadda dalkaasi Jabuuti wararkii ugu dambeeyay ee colaadda Falastiin iyo Yahuuda wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Itoobiya oo sheegtay inay dhulka la sintay maleeshiyaad ka tirsan haragii TPLF madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalkaasi Jabuuti waxaa cali masaarka ka qayb galay wufuud heer sare ah iyo madax dalal badan Soomaaliya oo ka mid ahay dalalka casuumaadda loo diray ayaa waxa ugu qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna ka qayb galay isaga oo halkaasina kula kulmay madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta sida ay muujinayaan sawirro la soo dhigay baraha bulshada dalka Djibouti oo looga hadlo afka Faransiiska ayaa la filayaa madaxweynaha inuu khudbad u jeediyo madaxda xafladdaasi ka soo qayb gashay inkastoo la filayo in madaxdaasi qaarkood la siin doono fursado kala duwan oo ay ku hadlaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay doorashadan oo bil ka hor dhacday mucaaradka dawladda Djibouti ayaana qaadacay inay ka qayb galaan doorashada ka dhacday dalkaasi Geelle ayaa tartan ku wajahay hal musharax oo kali ah doorashadan oo la sii saadaalin karay haatan colaadda Falastiin militariga Israa'iil ayaa saakay duqeymo kale ka fuliyay marinka Gaza dhanka Falastiiniyiinta ayaana gantaalo looga jawaabay weerarkaasi dagaalkan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa oo muddo sanado ah dhaca ergey Mareykanka ka socda ayaana Tel Aviv gaaray Hadi Amr ayaa la doonayaa inuu kulamo la qaato labada dhinac Mareykanka goor uu ka hadlay xasarada Falastiin iyo Israa'iil ayaa laga dheehanayay inuu Israa'iil u qiildayo waxayna iraahdeen Falastiin waxay difaacan kartaa dadkeeda iyo dalkeeda dalka Turkiga oo kali ah ayaa hadalka Mareykanka ka falceliyay waa uuna cambaareeyay halka ay dalalka Carabta ka aamusan iyo Islaamka intiisa kale dalka Mareykanka wuxuu ugu horeeyaa wadamada u aqoonsan Xamaas urur argagixiso dhanka kale gawaarida gurmadka degdega ah ee dawladda Masar ayaa gaaray marinka Gaza sida ay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi baahisay Masar ayaana sheegtay in saacadaha soo socda gawaari kale oo nooca gargaarka degdega ah ay gaari doonaan saacadaha soo socda marinka Gaza dhageystayaal raalli hada Masar ayaa xaqiijisay in saacadaha soo socda gawaari kale oo nooca gawaarida degdega ah ay gaari doonaan isla marinka Gaza gawaaridan gaaray oo tir ahaan 10 ah ayaa ka gudbay xadka Rafah Masar waxay ka mid tahay ama ay qayb ka tahay wadamada Israa'iil kala qayb qaatay cunaqabataynta la saaray Xamaas kadib markii ay ku guuleysteen maamulka magaalada Gaza qodobka ugu dambeeya ee aan warkeena ku soo afmeeraynana Itoobiya ayaa xaqiijisay in maleeshiyaad haragii TPLF ah ay cagta marisay maleeshiyaadkan oo Itoobiya ku tilmaamtay kuwa ku soo tababartay dalka Suudaan iyo Itoobiya ayuu ka dhaxeeyaa khilaaf adag oo muddooyinkii dambe soo taagnaa khilaafkan ayaana salka ku haya biyo-xireenka ay Itoobiya dhaaminayso ee webiga Niilka iyo dhulbeereedka aaga Fashaqa oo uu dagaalo ku dhex marayay ciidamada labadaasi dal intaasna waxaa ku eg warka Xusni News waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh